السلام عليكم سود بعد صاحب يال هل كان جوجنا maanta garoonka Dembeni oo ka dhacayso labada koox ee u dhaxaysa finaalka FC Godka iyo FC Iloni waxaad joognaa irid hore ee laga soo galo garoonka ciyaarta ka bilaabanayso waxaana markii soo gudbin doonaa ciyaarta full ah taa nala socdo hadda waxa la kulannay gudoomiyaha kubadda cagta Sportska ee Jaalid Soomaaliyeed ee Moyoto waxa wareys badan la yeelan doona isaga sida finaalka maanta goobjoog ka nahay iyo ciyaaraha mustaqbalka waxa la filayo gudoomiye soo dhow waa dhawahay ku soo dhawow waxa waaye waa mahadsan tahay habka inuu wareysanaysid isii quruxda badan oo nagu soo booqatay insha Allah maanta waxa dheelinaa liiga quruxda badnaay ee Soomaaliya Moyoto oo xawaa in badan noo soo socday waa liigii ugu horeeyay ee Soomaaliya ka qabsatay Moyoto marka maanta maxay ka dhigan tahay tartanka soo qabateen soo gaarsiiseen labada koox soo jeedid fiis Iloni fiis Godka maxaa filan karaa maanta والله وآد كل آد قرب بدن وحديله تيم إلوني تيم جودكا وعلى تيم وأود بدن وحنا فينا كل ما نسي أود بدن ماركا وحرجنا إن شاء الله سقير قبته ونحسن إنه نوصل ماته إن شاء الله سيدك الفيديو من الفيلم كرا مستقبل كعياره اللي قبته اللي كده عكس بورت الميوت والله إن شاء الله وحياه بدنا قرشيننا قوب كان كودم بماهن إنك سويا كين هوري هذانا وحقرشينا قوب بدنا قبلنا waxyaabo badan soo bandhig insha Allah waqtiga soo aad ma santahay waxa waxa la kulmay macalinka kooxda FC Godka oo halkaan ay maanta ka socdo ciyaarta u dhaxaysa labada koox finaalka ah PS Godka PS Iloni taad wareysi doona tababaraha iyo finaalka ay maanta soo gaaray sidoo dugantahay wuxuu rajeynaa sidoo adabahay marka hore waa maasantahay ilaahay mahad iska leh inta kadib kulay garoonka sidiisa waxa loo galaa gool iyo guuldara banoonidan cad iyo madow waay laba dhagaxna hadii la isku dhufto lutum baa jawaab marka maxaa urjeenaysaa adii kooxdaada iyo maanta taageerayaasha ka soo qayb waxaa urjeynaa guul insha Allah
la kulmi taageero da'yar waxaa ka wareysan doonaa kooxda taageersan yahay soo dhow magacaaga Anas, ka taageersan tahay godka leh waxaa warjinaysaa maanta inay badiyaan insha allah guul baan rajeynaa. ayo